kusoo dhawaada kanaalka daruuraha. Xajku waa tiirka shanaad ee ka mid ah tiirarka Islaamka ee shanta ah, waxaana lagu waajib yeelay inuu guto qof kasta oo awooda, iyadoo sanad walba muslimiinta caalamka ku kala nool ay isugu yimaadaan masjidka barakeysan ee xaramka, kaas oo ku yaala magaalada Makka ee waddanka Sacuudiga. Balse sanadkan xaalku sidii hore uu ka duwan yahay, kadib markii Sacuudigu ay ku dhawaaqeen inay hakiyeen xujaydii dibadda ee sida sanadlaha ah xaramka u soo booqan jirtay. Sababaha sanadkan xajku u baaqdayna waxay la xiriirtaa fayruska halista ah ee dunida ku faafay ee koronaha. Sanadkii la soo dhaafay, sida ay sheegtay wasaaradda xajka iyo awqaafta Sacuudiga, waxaa Kacbada soo booqday ilaa 2 milyan iyo bar xujay ah, laakiin sanadkan waxaa kaliya xajka loo ogol yahay dhowr kun oo qof oo gudaha dalka Sacuudiga ku nool, si loo ilaaliyo in cudurka adduunka halakeeyay ee corona uu ku dhex faafo xujayda. Waxaa kale oo Sacuudigu ay xaqiijiyeen in sanadkii tegay dad gaarayay ilaa 7 milyan oo qofood ay soo cimreysteen, kuwaas oo ka kala socday gudaha boqortooyada iyo wadamada caalamka. Hase ahaatee, sanadkan waxaa tiradaasi ay ku dhowaatay eber markii boqortooyada Sacuudigu ay joojisay dhammaan fiisooyinkii online-ka ahaa ee ay siin jirtay dadka doonaya inay soo cimreystaan. Kuwa gudaha ayaa iyagana cimrada loo diiday si loo yareeyo fayruska maarada loo waayay ee ilaa iyo maanta dawadiisa la raadinayo. Waxaa la xiray saxankii dawaafka ee xaramka, iyadoo Sacuudiguna uu laba jibaaray howlaha nadaafadda iyo jeermiska dilidda labada masjid ee Makka iyo Madiina. Si loo ilaaliyo fayadhoorka iyo badqabka caafimaad, waxaa sanadkan xujayda aan loo ogolaan doonin inay taabtaan derbiyada Kacbada iyo dhagaxa madow ee Xajarul Aswadka. Marka taariikhda xajka dib loo raaco, waxay taariikhyahanadu xusayaan in xilliyo badan uu xajku hakad galay ama la joojiyey sababo la xiriira dagaallo, cudurro iyo weliba fatahaadyo. Dhacdooyinkii ugu weynaa taariikhda ee baajiyey gudashada xajka waxaa ka mid ahaa dhacdadii maroodiga, waana midda uu Alle subxaanahu wa tacaala qur-aanka ku xusay ee ahayd markii uu boqorkii xabashiga ahaa ee Abraha ee boqortooyadii Aksum ee ka talinaysay Yemen uu weeraray Kacbada 517 dhalashadii Ciise kadib, isagoo doonayay inuu xujayda ku qasbo inay soo siyaartaan kaniisad uu ka dhisay Yemen. Laakiin Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa shimbiro ku salliday boqorkii Abraha ahaa iyo ciidankiisii, iyadoo xilligaasina reer Makka iyo xujaydii ay u kala carareen deegaanada buuraleyda ahaa ee ku dhowaa. Taariikhyahanada ayaa sidoo kale sheegaya in sanadkii 693 miilaadiyada oo ahayd xilligii khaliifkii Umayyiyiinta ee Cabdulmalik bin Marwan, in ninkii ka tirsanaa xukunkaas ee la oran jiray Xajaaj bin Yuusuf al-Thaqafi uu magaalada Makka dagaal kula galay saxaabigii la oran jiray Cabdullaahi bin Subayr, Allah ka raali noqde. Iyada oo Cabdullaahi uu gabaad ka dhigtay Kacbada, Xajaajna ugama uusan harine ee waxaa la sheegaa inuu Kacbada ku garaacay madaafiic waagaas loo yaqaanay manjaniiq. Weerarkaas waxa uu sababay in qaybo ka mid ah Kacbada ay burburto, waxaana istaagay dawaafkii, salaadihii lagu oogi jiray iyo cimreysigii intaba, ilaa markii dambe khaliifkii Cabdulmalik uu Kacbada ku sameeyey dib u dhis ballaaran. Waxaana dhacdadaasi ay ahayd midii labaad ee taariikhda gashay ee howlgabka ka dhigtay Kacbada waqti ka mid ah xilliyadii tegay. Sidoo kale, weerarkii ay Kacbada ku soo qaadeen nimankii la oran jiray qaraamidada sanadkii 930 miilaadiyada waa mid ka mid ah dhacdooyinkii uu dhiigga ugu badani ku daatay xaramka. Nimankan ayaa soo weeraray xaramka xilli ay socotay gudashada xajka, waxayna halkaa ku dileen ku dhowaad 30,000 oo qof oo xujay ahaa. Sababta ay sidaa u sameeyeen ayaa lagu sheegay in dawaafka Kacbada ay u arkayeen mid ka mid ah dhaqamadii jaahiliyada. Waxaa taariikhyahanadu ay sheegaan in qaraamidadu ama al-qaraamita ay siibteen iridii Kacbada. Sidoo kale waxa ay horey u qaateen Xajarul Aswadkii, kaas oo gacanta ugu jiray muddo 22 sannadood ah. Sidoo kale, muddo 10 sano ah ayay Kacbadu xirneyd, waxaana sanado badan kadib kumanaan diinaar oo dahabi ah lagu soo celiyey Xajarul Aswadkii muddada dheer gacanta ugu jiray qaraamidada. Fawaas bin Cali ad-Dahaas, madaxa xarunta taariikhaha Makka ee ka tirsan daarta dhaqanka ee Malik Cabdulcasiis, ayaa sheegay inay taariikhdu qorayso in xajku uu baaqday in ka badan 20 jeer sababo la xiriira cudurro, dhibaatooyin siyaasadeed,
mid dhaqaale iyo mid amni. Arrimahaas oo keenay in xajka la baajiyo. Weerarkii nin la oran jiray Juhaymaan al-Cutaybi iyo 200 oo nin oo uu watay oo ku abtirsanayay jamaacada Salafiya Muhtasiba ay ku qaadeen xaramka sanadkii 1979 ayaa ka mid ahaa dhacdooyinka la xasuusto ee albaabada u laabay xaramka. Cutaybi iyo kooxdiisa ayaa gabaad iyo gaashaan ka dhigtay dad aad u fara badnaa oo xilligaa ku dukanayay salaad subax masjidka xaramka, iyadoo kooxdan hubeysan ay muddo 2 toddobaad ka dhex dagaalamayeen xaramka. Hase yeeshee markii dambe ayaa lagu guuleystay in gacanta lagu soo dhigo Juhaymaan iyo xertiisii, waxaana dhammaantood lagu fuliyey dil toogasho ah. Sidoo kale waxaa jirtay marar badan oo uu hakad ku yimid gudashada waajibka xajka sabab la xiriiray xanuuno safmar ahaa oo dilaacay waqtiyo kala duwan. Sanadkan ayaa ka mid noqon doona kuwa taariikhda galay ee sida aadka ah hoos loogu dhigay dhaqdhaqaaqa xajka oo ay xajinayaan oo keliya dad aan sidaa u badnayn oo ku sugan gudaha Sacuudiga, iyada oo ay xusid mudan tahay in tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka corona ay aad ugu badan yihiin Sacuudiga marka la barbar dhigo dalalka kale ee deriskiisa ah. daruuraha